kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan isqurxin iyo waxyaabo kala badan. kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan isqurxin iyo waxyaabo kala badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. marka hore asxaabtayda waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ay igu xirantihiin aad comment-ay dhiirigelinta igu soo qortaan. kama daal inaan idin mahad celiyo dadka hadda igu cusub iyo dadka hore ila joog dhamaantiin waa idin mahad celinayaa. waxaan sameysanaynaa qado bariis waaye, bariis karsanaynaa. inta waxaan ku haystaa carrot aan soo hoolay ama soo hoqay. intana waxaan ku haystaa basal badan waaye, laba xabo waaweyn waaye. bariiska ani waxaan jeclahay basal badan inaan ku kariyo, dhadhan fiican oo u sameynaya basasha, yacni bariiska basasha dhadhan fiican ay siinaysaa. intana waxaan ku haystaa xawaaji isku dardar ah, xawaaji oo isku dardar ah wax walba leh waaye, haruud leh wax walba leh. intana waxaan ku haystaa laba xabo cube ah, Royco cube waaye. intana waxaan ku haystaa maraq digaag oo qudaarta laga sameeyay. intana hilib yar ku haystaa, hilib badan ma ku karinayo bariiska because ilmahan hilib ma jeclo, marka hilib badan hadii lagu kariyo dhowno saxanka ugu tagayaan, marka waa ka yareynayaa hilibka, wax yar lagu karinayaa. insha Allah xagaas ii dabka aadina asxaabtayda saliida dabka ii saaran. waxaan ku soo shubayaa basashi. bismillaah. basasha way badan tahay bariiska basasha loo soo yar gaduudato waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda basasha diyaar waaye, way noo soo gaduudatay. waxaan ku soo darayaa hilibkii. bariiska hilib badan ma ku karinaay because ilmahan hilibka ma jeclo, saxanka ugu tagtagaya marka loo guro cuntada. marka haddii hilib badan lagu kariyo haddana oo saxanka loogu tagtaa qashinka lagu daro israaf waayo soo maaha. marka hilib yaraan ku karinayaa, neef dhan oo nafta laga jar in lagu ciyaaro waa xaraam. marka kastaan hilib la ku karsanayaa, hilibka gaduudan ilmaha ma jeclo. marka hilibka loo soo shiilmo iyo basashaas ku soo shiilmaan wax yar kadib baan isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda oo loo soo shiilmay hilibkii waxaan ku soo daraynaa cadfiskii oo dhan ma kala reebaayay. xawaajiyadii, maraq digaagii, carrotkii wixii dhan hal mar ku soo darayaa. carrot badan aan ku karinaya because yaanyo kuma karinayo bariiska. waxaan kaloo kusoo darsanayaa garlic powder ama toonta shiidan oo powderga ah waaye. wax yar oo toonta shiidan ku daray. waxaan kaloo kusoo darsanayaa toon iyo kabsar caleen. ani toonta iyo kabsar caleen saana u diyaarsadaa, saliidan ku shiidaa, firinjeerkan gashtaa. marka way adkaatay ayada saliida lagu shiiday soo maahan, marka fridge marka la geliyo ayada adkaanaysa, barafay noqonee. halkaan baan ka isticmaalayaa iyadana toon kabsar caleentaasaa u shiiday. channelka waa soo geliyay dadka igu cusub ka faa'iidaysta insha Allah. channelka ku jirtaa sidaa aan u diyaarsaday kabsar caleenta sidaa u shiitay. intaa wax yar isku soo shiilmaan oo isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa noo soo shiilmantay, digsiga waa noo soo shiilmay wax yar. waxaan ku darayaa bariiskii.
bariiska hadaayan dhaqay biyo la dhigay marka mar dhawaan biyaha ka miiray shaandhamirkan weyn ku shubay si oo biyaha ugu sii baxo marka bariiska aan karsanayo 3 glass waaye laakiin qiyaasta gurigaaga la ku xiran tahay aan 3 glass karsanaya laakiin qiyaasta gurigaaga la ku xiran tahay waa ka yareysan kartaa waa ka badsan kartaa waan shiilayaa asxaabteeda bariiska hadda waxaan kusoo darayaa wala asxaabteeda oo noo shiilmay bariiska wala aadaamayay kaamirada waa istaajiyay waxaan kusoo shubanaynaa biyihii katalkan biyo kusoo kululeystay biyo badan uma baahna bariiska because biyaan la dhigay haddana si fiican aan u shiilay biyo badan uma baahno wax yar biyo oo kusoo huuro leh cusbaan kusoo daraaya cusbada intaasaan ku darsanaa ma ku badinay because waxaan ku darnay maraq digaag iyo reyko anoo soo karo bariiska kusoo laabanaya insha allah asxaabteeda intuu bariiska noo sii karsamaya waxaan samaysanaynaa jibsida laba kalar ka dhigi rabaa laba nooc kan cadaan ka dhigaya kan kalen orange ka dhigaa kalar ku daraya kala ku daraya marka saliida dabka ii saaran marka noo kululaato aan isku soo laabanayno asxaabteeda mashiintana saliid ku saartay saliida ii soo kululaatay hadda shabaqana ka soo bixinaa baradhada shabaqana ku soo shubaa kadib intaan dhaxgelin haddaan saan ayadoo aan ku shubo muddo waxaa laga yaabaa inay soo qayliso mashiinta ay soo kululaato soo maarta way shidan tahay hadda meeshaan ay ka shidan tahay marka shabaqa baradhada kusoo shubaya kadib waan kusoo shubay asxaabteeda baradhada waan kusoo riday hodhow markay bislaato markoo bislaado hodhow shabaqaana soo bixinaya ila arki doonto insha allah asxaabteeda bariiska diyaar waaye oo noo soo qalalay waan ka daminayaa hadda jibsiga dhammaystiranaynaa waa isku soo laabanaynaa insha allah asxaabteeda jibsiga waa noo soo karay waan ka bixinayaa hadda shabaqaan la bixinayaa intaan iska sugayaa saliidda markay ay ka garorto oo ka miiranto aan ka gadin doonaa insha allah markaas kadib aan isku soo laabanayna insha allah qadadiisaana noogu soo dhammaatay hadda kadib waa diyaarsanaynaa qaybta kale oo oranjiga kalarka aan ku darayna saan la usoo dubayaa sida hadda shabaqaan la kusoo shubaya intaan dhex gelinayaa mashiinta kadib markuu noo soo bislaado aan isku soo laabanayna insha allah sidii haddaa igu soo shubay asagana ugu soo shubaya insha allah waa isku soo laabanayna insha allah asxaabteyda bariiskeena waa kan sidaan quruxda badan nooga soo baxay jibsigina waa kan qaybtii oo kalarku daraayna waa kan sidaan ku soo baxay asagana maasha allah tabaarak raxmaan muhiimadda waxay ahayd bariiska qaabka aan karinaa inaan idin la wadaago bariiska saasoo furfur u yahay saasoo xabad meesheed u taagan tahay bajaq ma noqonin biyaha u yareeyay because asiga biyo lala dhigay haddana cabaara la shiilay soo maahan marka biyo badan ma qaadanaynin biyahan ku yareeyay waa kaas saasoo furfur u yahay oo kala daadanaa maasha allah ka faa'iidaysta walaalahayga qaaliga ah intaana hadda idin tusaaya qadadii iyo waxaan diyaarinayaa salarkii iyo cabitaankii iyo waxyaabihii lagu cuni lahaa insha allah marka ka faa'iidaysta insha allah
channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar beelka on ka dhigo si uusan ku dhaafin video kasto aan soo geliyo video like saara please video like saara share garee asxaabtan la wadaag insha Allah insha Allah video fiirsada dhamaysta insha Allah ha bootinin hada bootisin video wax ma ka fahmeysaan wixii aad rabteen inaad ka barataan ma fahmeysaan hada bootisin video marka dhamaysta samra insha Allah si fiican u fiirsada u samra waqti siiya insha Allah hadda ka faa'iideyso aan asxaabtayda qaaliga ah. Assalaamu calaykum.